xubno ka mid ah guddiga fatahaadda magaalada beledweyne ayaa beeniyey hadal ka soo yeeray odayaal iyo waxgarad kuwaasi oo guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne ku eedeeyay inay barakicin ay ka wadaan xaafadda Howlwadaag waxaynay sheegeen in biyo xireenka laga wada xaafadda Howlwadaag meel wanaagsan uu marayo. bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin aniga oo Cabdullaahi Maxamed Cabdirooraye maanta joogno biyo xireenkii laga qabanayo xaafadda Howlwadaag ilaah baa ku maadsan inaan ku kulano saxaafadda beledweyne iyo guddigii fatahaadda qayb ka mid ah annagoo joogno maanta shaqo culus muddo la waday maanta ay dhex noo marayso ilaah baa ku maadsan afarta xaafadood waxaa laga wadaa biyo xireen weyn oo qayb kanaaladii waraabaa lagu baxay biyihii muddaan la diyaarinaya ilaah baana xukunkaas leh iyadoo loo diyaariyey barnaamijkii gaadiidkii cagafyadii iyo katarabiiladii iyo gareediradii biyihii baa baxay waxaan go'aan ku gaarnay guddiga fatahaadda intaan nahay inaan qabanno meelaha go'on oo dhulbeereedka ay webiga ugu jibinayeen xaafadaha dhismaha hadda ka socdood arkaysaan dhabarkayga waxaan la wadaa muddo laba wiiga wuxuu dhan yahay 200 oo mitir oo hoos loo qodayo mid 4 mitir hoos loo qodayo sibir ilaah baa ku maadsan ilaahay baa na waafajiyay waxaa la wadaa waraabaale buundada meeshuu goosay labadeeda dhinac muddaa lagu wadaa ciid aaski iyo injeera joogo waxaa lagu wadaa afarta xaafadood deefow kabxanley wixii ka sokeeyay inta biyo xireenna laga wadaa waa taagan tahay shiddo waa iska jirtaa dad Soomaaliyeed oo ka xun ummadda Soomaaliyeed biyaas laga qabanayo oo laga xiraayo u taagan dadka biyaha aan ku raadsan warqado iyo boonooyin iyo wax la mid ah magaaladan dhib baa ka jiro waxaan kaloon sheegaa maanta qolaha qabataa leeyahay yiri saxaafaddu yeertay caynayso wax ka sheegayso kambaniga dahabshiil oo kambani Soomaaliyeed oo dalkii dibadda ka shaqeeyo waan ka xunnahay in la aflagaadeeyo dahabshiil biyana soo madayso waxna kuma dhaqato dalkan waxay u qabateen shacabka Soomaaliyeed waa garanaan reer beledweynena way og yihiin waxaan idin sheegaa guddiga macnaha shaqeynaya guddi reer Hiiraan waa ma aha guddi dirisama gaal jecel ma aha maxaan ku yiraahdaa in jajeela ma aha xawaadla ma aha guddi reer Hiiraan oo tafatiran oo yaa dalka wax u qaban kara la yiri waa aan ku shaqeeyo haynaa ninkii la dhaliilsan yahayna macnaha reer Hiiraan dhahi kara ariya waa dhaliilsan ninkan waa dhaliilsanahay nagala saara dhihi kara ma ogeey dadyow ayaga macnaha jeebkooda macnaha wax ku raadinaya inay macnaha tagaan meel ay tagaan oo ka soo waramaan bangi maxaa laga doonaa bangiga hadii macnaha dhaliil la tirsanayo guddiga la soo aadaa guddiyo waxaan idin ka dhaliilna la dhahaa dadyow oo barnaamijkan ka soo horjeeda waa jiraan oo macaarad ah rag waaweyn oo odayaal ah wax baan dhaqa jirnay laho biyo soo furayo biyihii ay ka soo fureen hadana dadku dacaydeynayo oo qabiil u nasbaynayo shakhsi u nasbaynayo waa jiraan dadkaas anagu hadda wax shaqo la wadaaga ma hayno nin hadduu asagaba caada qaatay qof asa caada qaatay inuu qof macnaheedu xumaan ku tilmaamo waa sharaf dhac adduunyadana waxa waaye dadku waa is aqaanaan nin walbana nasabkiisa iyo CV-giisa waa la yaqaanaa wuxuu yahay haddii nin wax ahayn wax laga ma dhigi kara ninkii laakiin wax ahaan jiray oo wiligiisba wax ahaan jiray oo la xaman jiray baa wax noqon doona ninkii shaqadan la wada oo biyaha xaafadda laga xiraaya colaadanaya oo muraadan aniga joogun maqbuul ma aha macnaheedu dirbiyaha madax uga haay waxa way Allah soo hanuuniyaan leenahay cara alla waxa way waa weyn tahay ninkii dhulkiisa diiday anaga colaadan ma hayno dad badan oo dhulkooda macnaheedu diiday waa jiraan biyaha in laga xiro mana u colaadanayno qofka dhulkiisa asaa iska leh laakiin inuu dad aflagaadeeyo yiraahdo ilmo yar oo caada qaatay iyo waxa samacnaha wax wada u yiraahdo waa sharaf dhac ninka hadduu wax rabo meesha wax jiraan inuu macnaheedu wax ka raadsado waa ragnimo laakiin inuu xaafadda jawaankeeda biyaha ku soo dayo haddana biri soo ordo miidi u yeerto sharaf dhac waayo dahabshiil lagu soo ordaa dahabshiil waa bangi Soomaaliyeed shakhsina waa shakhsi ninkii qof wax ka tabanayo qofkaas inuu la xisaabtamo waa sharaf badan tahay nin hadda weyn oo reer magaalo isku sheegayo inuu magaalo joogo oo siyaasi iska dhigayo oday wax garad iska dhigayo inuu maalin walba bangi macnaheedu oo ku soo hal qabsado meeshaas gabaad ka soo dhigto oo ninkii asaga markaas wax ay kala dhaxeeyeen oo ka warwareegtay sharaf dhacan u arkaan annagoo ma aragtay shaqadii maanta ummadda reer beledweyne reer Hiiraan gaar ahaan beledweyne annagoo shaqadii u hayno dirbiyadii halkii dhismihii meesha uu ka socdayaan joognaa halkan waa dirbigii weynaa biyo xireenka shubka la dhisay ma garad dirbigan waa dirbi shuba
waa intaasoo 4 mitir la soo shubay intaasoo maaragtay gudaha iyo bannaanka laga soo salaaxay shub kor laga soo saaray waa maaragtay mid khandaraas iyo maaragtay dad ay wax ka raadinayaan ma aha guddigii fatahaadda dhisay walaalayaal waxaan ku mahadsan arrinkaa maaragtay in ilaahay noo dhiibay oo ilaahay gacanta noo geliyey oo si cadaalada amaanta ummadda wax ugu qabanayaan insha allah dad ayaa maaragtay inta baxa biyaha beledweyne way soo galaan xilli kasta way yimaadaan cid lagu colaadanayna ma jirto wax ilaahay keena waay ciddii maanta ilaahay wuxuu keenay la dagaalamayso oo ilaahay wuxuu keenay gacmaha u dhigayso ama qof bini'aadan ku aflagaadaynayso oo qof bini'aadan u saaranaysana taa iyadaa maaragtay jawaabteeda ilaahay xaggiisa keenaysa insha allah walaalayaal biyahan way amri yihiin ilaahay baa keenay webigaana ilaahay baa magaaladan dhex marsiiyey wixii maaragtay awood iyo karaam uu guddiga leeyahayna waa la gelinayaa ciddii maaragtay biyaha shaqada biyo-xidheenkaas annaga maan ka shaqayno haddaanan annaga aan ka shaqaynayninna kambeniga maaragtay guddiga guddoomiyaha ama kambeni daabshiil aan u cambaaraynayna ciddii dhahaysana taa ayaday u taallaa walaalayaal kambenigan daabshiila iskale soomaaliyana uu ku yaallaa meel kasta adduunka qaaradaha adduunkao dhan ayuu ku yaallaa kambenigan daabshiil meel kasta oo joogto daabshiilaa keenaysaa ceebna ma lahan aflagaadana ma lahan waana la yaqaanaa daabshiil cid kastaa garanayso ciyaalkaa garanaya waayeelladaa garanaya dhallinyaradaa garanayso magaalo kasta uu ku yaallaa biibaxadaana daabshiil ma keenin ilaahay baa keenay subxaana wa tacaala kambenigaasna waa kambeni ummadoo dhan u dhexeey ciddii aflagaadaynaysana waxba ka qaadi mayso daabshiil waa meel caalamkao dhan laga aqoonsan yahay laba qof iyo nin maaragtay oo ciddii daabshiil maaragtay wax ka rabtana way aadi kartaa wax u doonan kartaa waxallaysi waa dhigi kartaa laakiin in kambeni la aflagaadeeyo oo wax laga sheego oo guddiga fatahaadda dhibaato maaragtay lala raadinaya kambeniga lugta loola soo kambenigaa jilcan haddii la leeyahay kambenigaa ma jilcano soomaaliya o dhan uu ku yaallaa caalamka o dhan uu ku yaallaa marka kambeniga yaalla aflagaadaynin ciddii kambeniga wax ka tabanayso wax ka rabtana waa u tagi kartaa xafiis ay leedahay waa shirkad weyn oo meel degan ma dhuumanayso ma la weysano waa loo tagi karaa waxna waa loo doonan karaa biyaha oo maaragtay korka yimidna annaga waan ka shaqaynay annaga hadda ku dhex jirno carraan dhigaynay wajal weyn oo buura aan dhigaynaa in biyaha xagga la tago lasoo sawiro oo dadka hadalkan ka soo yeeray xubnaha guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli odayaal iyo waxgarad degan xaafadda Howlwadaag ay eedeen kulan u jeediyeen guddiga fatahaadaha magaalada beledweyne oo lagu eedeeyay inay barakicin ay ka wadaan xaafadda Howlwadaag ee magaalada beledweyne cabdinuur Cusmaan Aadan Carays idaacadii TV-ga caalamiga SBC magaalada beledweyne